hantida ummadda Soomaaliyeed u dhaxaysa haday tahay dhismo iyo haday tahay dhulba inaba ha yaraatee sideedii inay tahay oo cid milkiyad aan ku wareejiyay in aysan jirin. waxaa la boobayaa dhulkii dawladda Soomaaliya, waxaa boobaya dhulka ganacsato, siyaasiyiin, madaxweyne xasan sheekh iyo qoyskiisa. dhulboob noocan oo kale ah Soomaaliya sooma marin taariikhda inta la xasuusto. sifa sharci darro ah ayaa loo iibinayaa dhulkan. ma jiro guddi iib qaran, sidoo kale ma jiro sharci iib. masaakiinta cidna uma maqna, qayladiina way ka dhammaatay. iyadii 7 sano jira indhayga ilma kunta ka muuqda waa la dhaca mana dhici karo haddii kale yaa talahan le waxayga saa lagu dhici karaa saa nin iska socda ku dhici kara nin iska socda warqada lahow isiiya dhulkan warqadihiisii aan heesna maxamed siyaad barraa'isi alxamdulilaahi anigu laajin ma ihi muslim qaalis ahaan aha askartu dadkan ikiciha iyo ka igu soo degay masaakiinta in la kacsana xaq ma ah islaamnimo hadday jirto oo muslim xalaal aan nahay oon isku dadnahay oon isku jisminahay hanala ka dhacsha dadkaas hanala ka dhacsho. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان صاحبة الصوماليات ملك سواء جوكتان يستقر صعود الله وليس حلو ونفسي. طبعا هرنا عوض ركتين وحين إلى التحي إن أدرينتين ماشي على الصعودة هرت وحاجة السؤال أنت أنا برنامج كيف يقول جرين سديد بلاد كذب حسن الشيخ محمود محوري جين دورة ورن دورة ورنتي في قرنكة مدحوينه وات قال كاس وين madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ku wareejiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wixii ku qornaa ee hanti qaran ahaa maanta xasan ruuc kama hayo. waayahay mawduucu wuxuu ku saabsan yahay marka xasan sheekh maxamuud oo shala hadlay isaguna istuqeeyay dabcan oo yacni waxaa la yidhaahdaa waxaa jirta gar aad naqayso oo kugu noqota. isla hadalladiisiyaan soo qaadan doonaa sidii loogu lisay inuusan u hambayn baana insha allahu tacaala ummadda توصين دونا وجودين حتى مرة بينان إذن قطعنا واحد جرا وياه شلي وحال حسن محمود مركه هذا الكيس وحاكم مغضي حقا دي صوماليات اللي جستي صدح وصدح كام هران باهي جروك جرو جيروك إيو قردر جربك صدح له وحال يجي وصدح كام هران حسن محمود wuxuu ka sheekeeyay taariikhdiisa dhowr goor oo hore ah waa uu sheegay laakiin shalay waxa weeye uu yara dul istaagay oo wuxuu sheegay yacni isaga abaalka ay dawladdu u gashay dawladdii xilligaas jirtay kolleydii waxay la tahay waa dawladdii muxuu ahayd maxamed siyaad barre wuxuu sheegay hooyadii in ay ku soo korisay nolol aad u adag oo ay lahaayeen hal sac iyo beer bay lahaayeen maamadu halkaasi bilka ugu soo dhicin jirtay qoys saboolay ahaayeen laakiin waxaa wax tartay oo xagga waxbarashada ka difaacday dawladdii markaasi jirtay maxamed siyaad barre balorta muuqaalka xasan sheekh maxamuud waxyar aynu daawan aniga iyo qoyskayga aniga agoonan ah mar walba waa sheegaa hooyo Soomaaliyeed ay soo korisay ciidan waxba haysanaan ahayn sac yaroo irmaana iyo beer yaraa noo tiilay aan ku soo kornaan ku noolayn maanta aniga iyo 5 qofood ee la dhalatayba dhammaan waa jaamiciyiin waana dad guulaystay oo ilmahoodii hadda ay jaamiciyiin iyo si jaamiciyiin iyo dhaqaatiir injineer ah haddii fursadaasi dawlo aanay bixi lahayn yacni annaguna maanta muxuu ahaay sida macallinkayga uu sheegay beer yaraan muxuu ahaay sidii oo kale aan magaalada Jalaalaaqsi ku lahaan lahaa. waayahay dabcan dawladdaas horta waan uga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee xasan iyo carruurtii la midka ahayd berigaasi jirtay ee xaqooda u siisay. waxaan rabaa xasan inaan weydiiyo dawladdii xilligaa jirtay hooyadaa beerti kamay qaadin
sicna kamay qaadan laakiin waxay dhaheen maamo bal carruurta cuntadooda uun ku dadaal oo beertaada ya iska falo sacaagana u maal waxbarashadiina annaga ayaa kaafinay sidaas ayay 5 carruura iyagoo ah xasan maxamuud iyo walaalihii wax ku soo bartay hooyadaas adiga ku dhashay mujaahidada ahayd dabcan oo qaabka harjadka idinku soo korisay hooyadii la midka ahayd ee maanta adigu aad u gurman lahayd adigoo madaxweynaha jamhuuriyadda xasanow maxaad ku samaysay bal haddii ilata hooyaday iyo aabbahay suuq siina ay ku dhinteen waxaan u dhinteen dawladda waxaa ku xigsaday odagii ilmaha iga dhalay asigana sidoo kale wuxuu ku dhintay siinaay leeguma tixgelin intaasoo dhan waxaa dhacday in hooyaday qabrigeeda haddana iskool bulisiya ka baxsay ee dawladda itra sidoo kale ayadana waa ka baxsaday sorry ayadana waa ka baxsaday aadana ugu xun haddana maanta waxaan la'nahay meel ilmaha agoontaan ku haysan waayahay gabadhaas waxaa weeye xasanow dalka waxay uga xaq badneed adiga hooyada sababtoo ah adiga aabbaha qaranka uma dhiban ee tii alla u dhintay laakiin gabadhan aabbaheed iyo hooyadeed qarankay u dhintay ninkeedii qaranku u dhintay iyadiina waxaa weeye waxaas aad aragtay baad ku samaysay miyaanay xaquuq kugu lahayn miyaanay ahayn adigoo ku dayanaya dowladdii hooyadaa garab istaagtay inaad iyadan iyo wixii la mid ahna adigu aad garab istaagto maxaa kugu kalifay inaad dhibaatada ay sheegatay ee intaasi la eg aad ku samayso hooyadaas agoonleyda ah oo dabcan la midka ah adiga hooyada waa meeshan kow ka iri waxaa jirta gar aad naqayso oo kugu noqonaysa haddii qofku uu maaragtay wax ku dayashaa uu samaynayo baahidii uu ku soo korana uu xusuusto ma aha keliya inuu wax boobo baahidi markuu xusuusto dherig inuu ku fikira maahe war xilligaas gaajada xunu idin haysay cid wax idin tartaa jirteen maanta dadka maxaa tari kartaa oo xisaabta igu jirta laakiin xasan keliya waxaan dareemaynaa ama aan ka aragnaa in ay ku jirto war gaajadii shalay aad ku soo kortay waxaa weeye adigu marka hore ka bax carruurtaaduna yay dib u gaajoon intaas unbuu focus ka saaray wax muxuu ahayd dad kale iyo bini aadam iyo cid inuu wuxuu qabtaa qalbigiisa marna ma uusan gelin ugu dambayn fiideo ayaan ku soo qatimayaa fiideogaasna sababta xasan ku kaliftay waan idin cadaynayaa waa xog hoose aynu helay marka hore fiideoga aynu daawan taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed halkan joogana waxaan farayaa dugsiyada magaalada Muqdisho in laga baxo dadka inay ka baxaan dugsiyada magaalada Muqdisho waa dan guud waa meel jiilashaas oo dhan in ay ka soo baxaan la rabo walaalaha degan ee qoys u soo degay yani danta caamka ah la hagaajin kara baahida qoys kasta Soomaali ah baahidiisa lama hagaajin karo laakiin waxa qoysaska Soomaalida oo dhan ka dhaxay oo ayaa la hagaajin karaa meeshaas qoysas badan oo Soomaali ah ayaa iyo carruur badan oo Soomaali ah ayaa aadi doonta hadii alla yiraahdo waayahay sida aad maqlaysaan baxasan mar kale wuxuu amar ku bixiyay in laga baxo xarumaha dawladda fiideogan ayay ahayd ujeedada dhan xasan meeshan u yimid inuu fiideogaas sameeyo sababtu maxay tahay sida aynu ku helnay xog hoose waxaa xasan u soo dacwooday raggii u qaabilsanaa barakicinta shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho waxay u sheegeen in ugu yaraan 40 meelood oo lacaga laga sugayay dadkii ay lacagihii la daaheen maadaama arrimaha dhulka aad looga hadlay siyaasiyiinta arrinka soo farageliyeen dadkii waxayba xoogaa yara aamineen baa la yidhi in hawshan la hakin doono oo madaxweynuhu muxuu ahayd dhul dambe aan laga kixin doonin marka dhaqaalihii dadkii waanu ka qaadi weyn wuxuu yidhi ma saasa ahaa anigaa idin fududaynaya haye anigaa hadlayo amar baan bixinayaa iyagaa markaasi gudlanaya neefka geela ariga ama lo'da markuu يعني عارف في عن
laga lisi waayo waa la gujeeyaa gujaa lagu dhuftaa si uu gaaro waxaa weeye marka waan soo gujeynayaa buu yidhi halkaasuu tegey xerooyinka oo in laga baxo dadka shacabka oo shaqsi meesha u soo degay shaqsi adigoo qoysa soo shala dowladii wuxuu ahayd maxaa sabab adiga hooyada ma taageero 5 caruur ah oo bari maxaad leedahay shakhsiyaadkan waxba danahooda kama qaban karno midda kale annagoo og in waxaani dan shakhsi ay ku baxayaan oo muxuu ahayd dadka intaad ka qaada adigu aad qaadanaysid maxaad uga dhigaysaa wax dan guud ah oo badda ka dhaxeeya waxa weeye videoga taasaan ku kaliftay wuxuu yiri aniga gujo ku soo dhufanayee lacagaha soo ururiya amarkaasna waxaa bixiyey xasan maxamuud si dadka muxuu ahayd lacagaha laga sugay ee lacagaha ula soo degdegaan haddii la soo degdeg waa ka tarbiilkii baa bilaabanaya ugu dambeyn waxaa la siyaasiyiinta reer muqdisho fadhi ku dir iyo islaamba maalin laga oysiiyo looma baahna xasan mar kale wuxuu u tafaxiidanayaa in shacabka uu barakiciyo waxaa laydinka doonayaa shacabka inaad difaacdaan haddaad xasan uga runtiin warkaan war weyn waaye xasan haddaad uga runtiirodon tuugo kale oo qawda maqashii waxna haw qaban ku shaqaynaysa aydan ahayn dadka shacabka xasan waa inaad ka difaacdaan oo ka tarabiil dambe hadduu soo qaato xabad lagala hortaga oo la iska difaaca sababtoo waa saa'ilna waa la iska celiya barnaamijkaaga intaasan kusoo gabagabaynayaa hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu